السلام عليكم أصحاب قيمها بدن ku xiran kanaalkan YouTube-ka Danjire Channel kusoo noqdo wanaagsan iyo article xiiso waxaan doonaynaa inaan ka hadalno geedkan loo yaqaan sactarka fawaid uu leeyahay oo isdul taagno wax kamid ah ka soo qaadano fawaidiisa geedkaas oo lagu tiriyo dhirta ugu qiimaha badan حتى قيمها بدن ee ku xiran kanaalka waxaan ka codsanaynaa inay si share gareeyaan oo like gareeyaan oo subscribe kana nagu caawiyaan bulshadana gaarsiiyaan siday uga faa'iideystaan macluumaadkan qiimaha badan ee kasbarka wadan ka hadalno waxyaalaha uu dawada ka yahay wuxuu xoojiyaa oo meesha ka saara qofka dareemaya ama hargabka ama qufac qalalan ayuu ka suuliyaa haduu isticmaalo geedkan oo si fiican u isticmaalo ama qabowga jirka qofka gala ayuu meesha dhan ka suuliyaa qofkaas marka geedka استعماله إن شاء الله كجعف ماضي لمبر لبا وحوجيا دفاع الشركة قفك بالآذنك يونو يدي الانتين ودب السعودية وفرفرعوني كسمية يو حديدة يجانا سيدو كلا يجانا فرفرعوني كسمية ودباتوين كيمياء أيو كهجاتيا أما كساران بكيا مرقيدا وضنها وصف عني وشقيا مرقيدا وضنه ويحوج ليهين يجانا كساعدة لمبر صدح وحاكلو هجاتيا إنو ديجي فرفرعوني كسمية وقلقل كديجا أما وريج ديجا وهجاتيا lambar 4 waxa kale oo hagaajiyaa qofka dareemaya inay kaadidu hayso ayuu haduu geedkan isticmaalo wuxuu ka qayb qaadanayaa qofka inay kaadidii si sahlan uga timaado waxa kale uu fiican yahay dadka ka cabanaya kaliyaha oo kaliyahana wuxuu ku sameeyaa tandiif uu nadiifiyaa wuxuu ka saaraa wasakhda iyo waxyaalaha kaliyaha dhibaatada ku haya ama xanuunka kaga jira waxa kale oo takhfiif ku sameeyaa cholesterolkiisa xun ee dhibaatada leh ayuu kaasna hoos u dhigaa oo cholesterolka ayuu ka dhigaa qofkii mid aan dhibaato ku keenay jirkiisa lambar 5 waxa kale oo ka saacidaa qofka bini'aadanka inuu calooshiisa oo nadiifiyo oo caloosha waxyaalaha ku sugan ee dhibaatada uu ka sooriyo maadaama ay calooshu tahay baytuda marka xanuunada dhan ayaa soo yimaada waa gurigii xanuunada marka wuxuu ka saarayaa dhibaatooyinka ay xanuunadaas ku keeneen caloosha meesha qofka haduu cabo geedkan oo isticmaalkiisa uu joogteeyo marka wax mashaakil ama wax dhibaato ka dareemayo caloosha marka walaalaha waxaan leeyahay geedka aad iyo aad u ogaadeen oo dadka ka cabanaya ama caloosha ama gaas sir hayso ama dibirada geedka haday isticmaalaan way kaga ladnaanayaan sida lagu sameeyay tajriibada ama macluumaadka badan ee laga hayo geedkan inuu u fiican yahay xagga caloosha ama maciidada lambar 6 waxa kale oo meesha ka saaraa gooryaanka ku dhashay caloosha ee qofka bini'aadanka dhibaatada ku keena kana wuu dilaa wuxuu ka sameeyaa inuu goryaankii la dagaalamo iyo bakteeriyada iyaduna dhibaatada ku haysa jirka bini'aadanka iyadana uu ka saara uu ka suuliyaa oo waxaan garanaynaa maanta dad badan oo ka cabanaya goryaanka caloosha marka haday geedkan isticmaalaan oo ay joogteeyaan way kaga ladnaanayaan biidinillah lambar 7 waxyaalaha kale uu ku fiican yahay waxa kamid ah dadka shubanka ama shuban badan calooshooda ka soconayo haday geedkan isticmaalaan shubankaas waa ka joogsanaya oo ay isku daraan saliid saytuun iyo geedkan loo yaqaan sactarka hadii labada la isku daro oo qofku isku isticmaalo shubankii waa kaga ladnaanaya oo shubankii uu dareemayay ama calooshii uu ka soconayay shubanka faraha badan oo kaga ladnaanaya lambar 8 xanuunka loo yaqaan kansarka ilaahay inuma keenee isagana uu ka hortagaa oo ka hortag fiican buu yahay qofka haduu isticmaalo xanuunkaas ma soo wajahayo haduu geedka isticmaalo oo joogteeyo lambar 9 waxa kale la isku cuni karaa ama la isku darsan karaa oo faa'iido aad iyo aad u heer sareysa leh sida saytuunta iyo geedka sactarka oo wax qayb qaataan inay xoojiyaan maskaxda oo qofku markaa xagga surcada ama degdega xasuusta macluumaadkii uu hayay uu soo daynayo ama maskaxiisa u xasuusanayso ayay ka saacidaan labadaas oo la isku daro oo la isticmaalo warbixintii aan ka sameynay geedkan sactarka intaas ayay ku